maamulka Puntland ee Soomaaliyeed iyo hay'adda bisha cas ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa kala saxiixday heshiis wada shaqeyneed oo ogolaanaya in hay'adda bisha cas ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ay xafiisyo ka furato deegaanada maamulka Puntland si ay u fududeyso arrimaha gargaarka bani'aadanimo ee xafiisyadan ay ka faa'iideysan doonto dowlad goboleedka Puntland. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ayaa saxiixay heshiiskan wada shaqeyneed ee dowladda Puntland iyo hay'adda bisha cas ee dalka Imaaraadka Carabta. dhinaca hay'adda bisha cas ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta waxaa heshiiskan u saxiixay xogayaha guud ee hay'addaasi ee lagu magacaabo Maxamed Ataaq Al-Falaahi. maamulka Puntland ayaa isbuucyadan dambe waxa uu ku howlanaa ka shaqeynta xaaladaha arrimaha bani'aadanimo ee ka dhashay roobabkii ka da'ay gobolada Puntland, waxaana jira guddiyo ay dowladdu u saartay ka shaqeynta arrimaha bani'aadanimo ee gobolada dadka ay saameysay roobabkii duufaantii Bogan ee ku dhifatay qaybo ka mid ah gobolada Puntland. xafiiska hay'adda bisha cas ee laga furayo deegaanada maamulka Puntland ayaa ka mid noqon doona xafiisyada dowladda hoose kala shaqeyn doona arrimaha gargaarka bani'aadanimada, waxaana wafdigii ugu horeeyay ee xafiiskaasi ka socda uu gaaray maalinkii shalay ahaa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland.